baday dhegaystayaal waxaa ilaah siiyey nebigeenna moxamed sallallahu calayhi wasalam karaamooyin iyo mucjisooyin fara badan waase ugu weynaa socdaalkii loogu dheelmiyey nebigeenna suuban xagga samooyinka toddobada ee kala sarraysa isagoo booqasho rasmiya ugu tegay allah ilaaha iskale milkiyadda abuurka gacantiisana ay ku jirto nolosha iyo geeridu waxayna ahayd mucjisatii ugu weyneyd ee taariikhda nabawiga waxaana markii ugu horreysay qof bili aadanay uu socdaalo xagga samada isagoo ku ordaya xawaaraha nuurka waxaana tafaasiishan aynu ku eegi doonaa sababta nebigu samada loogu dheelmiyey qaabka ay gu suurto gashay iyuuse kula kulmay nebigu samaawaadka su-aalahan oo idin ayaan isku dayi doonaa idin idiin faahfaahino ka horse like oo la wadaaga asxaabtaada. socdaalka la yaabka badan ee israa wal macraaj ayaa kusoo beegmay xilli murugo badan wuxuuna kusoo hagaagay dhimashadii xaaskii nebiga khadiija radiallahu canha iyo adeerkiis abudaalib oo ku weynaa qalbiga nebiga waxayna bilaamatay dheelminta nebigu habeen isagoo hurda waxaana u yimid 3 ka mida malaa'igta karaamada leh sida jibriil iyo mikaa'iil waxayna jeexeen bogga nebiga waxayna ku meereen biyaha zamsamka waxayna ku nuuriyeen qalbigiisa iimaan iyo xikmad waxaana markaas kadib jibriil u keenay isagoo wada gaadiid cajiiba oo lagu magacaabo bureeq waxaana raacay nebigeenna suuban sallallahu calayhi wasalam oo u duulay xagga hawada sare waxaana bilaamatay dheelmintii nebiga oo loo qaaday xagga samooyinka fog wuxuuna ku yiri allah isaga oo ka waramaya arrinkan سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. عبد الله بن مسعود يا لغسوريي waxa uu fuulay nebigu buraaq wuxuuna ahaa hawayaan faraska ka yar dameerkana ka weyn mana qaadin nebi ka horreeyay isaga wuxuuna ku duulay bureeq waxaana habeenka la tusay aayaadka naga ee waaweyn ilaa uu ka gaaray baytalmaqdis waxaana jibriil u shubay 2 koob oo mid uu ku jiray khamro midda kalena caano waxaana nebigu u doortay koobkii uu ku jiray caanuhu waxaana malakal jibriil ugu bishaareeyey nebiga in la hanuuniyey ummadiisa waxaana markaa kadib bilaamatay dheelmintii nebiga ee samooyinka kala sarreeya waxaana jibriil uu samada koowaad kula kulansiiyey nebi aadan oo isku salaameen waxaana markaa kadib jibriil u gudbiyey nebiga samada labaad waana laga furay waxuuna kula kulmay nebi zakariya ciise ibn maryam calayhi salaamullaahi jamiican waxaana markaa kadib jibriil nebiga u sii gudbiyey samada saddexaad wuxuuna kula kulmay nebi yuusuf calayhi salaam jibriil intaa kadib wuxuu u gudbiyey nebiga samada afraad wuxuuna ku arkay nebi idriisa calayhi salaam kadib waxaa jibriil u gudbiyey nebiga samada shanaad wuxuuna kula kulmay nebi haaruun calayhi salaam kabacdi waxaa loo sii gudbiyey nebiga samada lixaad wuxuuna kula kulmay nebi muuse calayhi salaam ugu dambeyn waxaa markaas kadib jibriil uu sii gudbiyey nebiga samada toddobaad wuxuuna kula kulmay nebi ibraahim calayhi salawaatullaahi wasalaam waxay intaa kadib ay gaareen sidrat almuntaha waxaana nebigu ku arkay malakal jibriil muuqaalkiisa runta waayo awalku muusan arki jirin nebigu malakal jibriil shakalkiisa caadiga ah waxaana jibriil markaa uu nebiga uu la kulmay uu iska dhigi jiray qof bini aadan oo shakal caadiya leh waxaana nebigu uu arkay baaxadda 600 eebbaad ee uu leeyahay jibriil oo buuxiyey inta u dhaxaysa dhulka iyo samaawaadka waana kan ilaah isaga oo ka waramaya bal sidaa uu ku arkay nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam shakalka jibriil iyo sida marka ay xaaladdu ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. وإنتاس كدبت ملك الجبريل كور قليي نبيغا إن حدودي سكو سمنتهاي سدرة المنتهى وسندا فكرين وحانا النبيغو قد بي حقا عرش الرحمن waxaana ku qaabilay ilaaha caalamiinta waxaana nebigu ku salaamay allah salaantii ugu quruxda badnayd attixiyaatu walmubarakaatu assalawaatu altayibaatu lilah waxaana kulankaas ilaah ku faray nebiga iyo ummadiisa 50 salaadood maalintii habeenkii waxaa kaloo la tusay nebiga jannada wuxuuna ku soo arkay
waxaysan indha arag, dhegahuna maqal, qalbiguna hindisin. waxaa kalou booqday cadaabta, wuxuuna ku soo arkay dabka iyo ololka lagu cadaabayo dadka. markii ay ka soo noqdeen nebiga iyo jibriil, waxay soo mareen nebi muuse, waxaana nebigu uga warramay waxaa lagu farad yeelay allah uu ku farad yeelay ummadiisa ee salaada. waxaana ku yidhi nebi muuse, ku noqo allah weydiisana inuu kaa khafiifiyo salaadaha lagu waajibiyey ummadaada. waxaana nebigu ku soo noqday allah, wuxuuna weydiistay inuu ka khafiifiyo salaadaha lagu waajibiyey ee 50 ah. waxaana ilaah ka khafiifiyey 10, waxaana lagu waajibiyey 40. waxaana nebigu ku soo noqday muuse, waxaana mar kale muuse uu ku celiyey in lagu khafiifiyo salaada lagu waajibiyey, waana mar kale nebiga laga khafiifiyey in kale. waxaana nebigu ku noqnoqonayay allah ilaa ay ka soo gaarto in 5 salaadood oo keliya lagu waajibiyo nebi maxamed iyo ummadiisa. waxaana mar kale nebi muuse ka dalbaday nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam inuu ku noqdo allah, weydiistana mar kale in laga khafiifiyo. waase arrinkaa ka biyadiiday maraka nebigeenna suuban sallallahu calayhi wasallam, waxaana u sheegay muuse inuu ka xishoonayo ilaahiisa. waxaana cod faseexa markaa kadib loogu sheegay nebiga in lagu waajibiyey 5 salaadood, laguna abaalmarin doono ajarka 50 salaadood wax u dhigma. wadaxaajood kadib, waxaa nebigeennu ku guulaystay inuu naxariis inoo weydiiyey allah ummadiisa, wuxuuna u soo duulay markaas kadib xagga caalamkan aynu ku noolnahay. waxaana markii uu soo laamay kadib, nebiga xoogaa uu ka cabsaday inuu dadkiisa uga sheekeeyo wixii habeenkaa dhacay, isaga oo markaa u baqay inay rumaysan waayaan. waxaana nebigu markii dambe uu ku dhiiraday inuu sheego safarka baytalmaqdis iyo samaawaadka, waxaana inta badan dadkiisu ogaa bal inay beeninayaan, uuna ka cabsi qabay. waxaana la sheegay in abaajahal lacnadi ha ku dhacday oo arkay nebiga, kuna arkay masjidka xaramka. wuxuuna ku yidhi, khabar maxaad maanta haysaa? markaasuu yidhi nebigeenna suuban sallallahu calayhi wasallam, haa waan hayaa. muxuu yahay ayuu ku yidhi. wuxuuna nebigu yidhi, waxaan xalay u dheelmaday xagga baytalmaqdis. markaasuu ku celiyey abujahal, baytalmaqdisa? waxa uu nebigu ugu jawaabay, haa. waxaana abaajahal oo isagu dheeldheel iyo qosol ay ka tahay uu u sheegay nebiga bal inuu u sheego qoomkiisa isaga waxa uu sheegay quraysh. waxaana abaajahal uu isugu yeeray quraysh si ay u maqlaan waxa uu nebigu u sheegay. waxaana nebigu go'aansaday inuu u sheego ummadiisa mucjisada ilaah tusay habeenkaas. waxaana abujahal oo quraysh soo ururiyey ku yidhi, u sheeg sheekadii aaday sheegtay. waxaana nebigu ka sheekeeyey habeenkaas wixii dhacay. waxaana quraysh intooda badan ay noqdeen kuwo beeneeya aayaadka ilaahay. waxaana warkii gaaray maka oo dhan. waxaana dadku ay u tegeen abubakar, waxayna uga warrameen nebi maxamed sida uu yidhi. waxaana abubakar uu ku yidhi, waad ka been sheegaysaan. waxayna dhaheen, wallaahi wuu yidhi hadalka. waxaana abubakar uu ku jawaabay, hadduu sidaas yidhi waan rumaysanayaa. waxaana markaa kadib abubakar uu yimid rasuulka sallallahu calayhi wasallam dabadeed oo quraysh ku hareeraysan tahay, wuxuuna weydiiyey waxa uu arkay. waxaana nebigu uga warramay quraysh waxaa habeenkaas ilaah tusay. waxaana quraysh weydiiyey nebiga bal inuu u sifeeyo sida ay u eg tahay baytalmaqdis. waxaana uu sharaxay nebigu sida ay u ekayd baytalmaqdis. waxaana jaabir ibnu cabdillaah laga soo wariyey in nebigu u sheegay markii qurayshi ay beenaysay ay weydiisteen inuu uga warramo baytalmaqdis sida ay uga eg tahay, in sida telefishinkii indhihiisa loo horkeenay baytalmaqdis oo uu ka warramayey sida ay u eg tahay. waxayna ahayd arrinkan arrin mucjisaa oo weyn oo markii ugu horreysay taariikhda adduunkan uu qof bili aadani socdaa lagu ambabaxo hawada sare iyo samaawaadka, kulana kulmo ilaaha caalamiin. layku la wadaaga asxaabtaada